kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee dalka oo meel xun maraysa iyo shirarkii madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo laga yaabo in lagu kala dareero baarlamaanka Soomaaliya oo biri yeelanaya kulan aan caadi ahayn oo shaki weyn uu ku gadaaman yahay halkee ayuu marayaa qorshihii muddo kordhinta maxaa iska bedelay mowqifka guddoonka golaha shacabka kadib cadaadisyo la sheegay in ay uga yimaadeen beesha caalamka filla Soomaaliya oo war culus ka soo saartay wararka sheegaya in dawladda federaalka ay iskaashi military la saxiixanayso dawladaha Ethiopia iyo Eritrea haddaba maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo uu u safri doono magaalada Addis Ababa qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxaa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kulan xasaasi ah la qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed maxay ahaayeen qodobadii ay uga wada hadleen kulankooda maxaase ka jira in kulankaas lagu xaliyay khilaafaad hoose oo ka dhex jiray gudoomiye Mursal iyo Laftagareen Kenya oo wada rafashadii ugu dambeysay ee kiiska badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya warbixin cusub oo ay Kenya soo saartay ayay ku sheegtay in kooxda shabaab ay qaarijin rabeen madaxweynihii hore ee Kenya Moi Kibaki iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga maxaa iska quseeyay kiiska badda ee maxkamadda ICJ iyo weerarkii ay maleegeen kooxda al-shabaab iyo diyaarad waday wafdi imaaraad ah oo laga celiyay magaalada Garacad ee gobolka Mudug muxuu ahaa qorshaha wafdigan maxayse Puntland ka tiri wafdigan laga celiyay magaaladaasi qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen talaado ah 3 bisha 3 ee Maarso sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanina wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaan fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadiina idinkoo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku bilaabaynaa wararkeena caawa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka xilli dalka uu ku jiro xaalad adag oo ku saabsan doorashadii in aan wali heshiis laga gaarin ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa uu kulan la qaatay goordhoweyd wakiilada beesha caalamka waxa uuna kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa isla markaana loo dhameystiri lahaa arrimaha doorashooyinka dalka iyada oo lagu saleynayo heshiiskii 17 September 2020 Muqdisho ay ku gaareen madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka kulankan uu la qaatay goordhoweyd ra'iisul wasaare Rooble wakiilada beesha caalamka ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli muddooyinkii iyo maalmihii la soo dhaafay beesha caalamka ay waday dadaalo ay isugu keenayso madaxda Soomaaliyeed wakiilada beesha caalamka loo yaqaan C6+ ayaa waxa ku jira Danjire James Swan oo ah wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya safiirada kale ee dalalka caalamka ee jooga magaalada Muqdisho waraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa lagu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka oo ay ka wada hadleen dardargelinta iyo dhameystirka arrimaha doorashooyinka dalka si waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 iyo soo jeedintii guddigii farsamada ee Baydhabo dhinaca kale haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee dalka oo meel xun maraysa waxaana laga yaabaa in shirarkii madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ee gooni-goonida ahaa in lagu kala dareero kadib markii wax natiijo ay ka soo bixi waayeen kulamadii ugu dambeeyay ee madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay yeelanayeen inkastoo shirarkii dhacayay muddooyinkii iyo maalmihii la soo dhaafay ay ahaayeen kuwo kala gooni-gooni ah oo hadba dadka isfahamsan ay gooni u shirayeen waxaa ugu dambeeyay shirarkaasi shirkii madaxda maamul goboleedyada ee 5 ah lama soo warin wax natiijo oo ka soo baxay shirkaasi maadaama madaxdaasi ay isku khilaafeen ajendaha shirka doorashada Afisiyoni iyo in shirkaasi uu gudoomiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa la sheegay in laga diiday dalab ahaa in shirka ay gudoomiso beesha caalamka isla markaana madaxweyne Farmaajo uu qayb ka noqdo xubnaha kale ee shirka ka qayb galaya taasi oo beesha caalamka ay si weyn uga soo horjeedo si kastaba haatee xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa meel xun maraysa iyadoo lagu waramayo in haddii wax isbedel ah ay la imaan waayaan madaxda Soomaaliyeed in laga yaabo in shirarkaasi ay noqdaan kuwa lagu kala tago oo lagu kala dareero haddii natiijooyin wax ku ool ah ay soo saari waayaan madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho u yimid in ay ka qayb galaan shirarka doorashada gaar ahaan shirka Afisiyoni
oo lagu wada in xal looga gaaro arrimaha doorashada Soomaaliya. haddaba daawadayaal wararka ku soo kordha wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaadna la socotaan. Berito waxaa la qorsheynayaa in baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka uu shir isugu yimaado. shirkaasi waxaa ku gadaaman shaki weyn oo ku saabsan in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. qorshahan waxaa la sheegay in uu wado gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. qorshaha waxa ku taageeraya gudoonka qaybihiisa kala duwan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo si weyn u taageersan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. lama oga natiijooyinka ka soo bixi kara kulanka berito, balse waxaa la saadaalinayaa in haddii kulankaasi berri uu furmo ay halkaasi ka dhici doonaan dhacdooyin waaweyn oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka ah ayaa sabtidii aynu ka soo gudubnay ishoristaag waxay ku sameeyeen kulankii golaha shacabka inuu furmo kadib markii ay sheegeen in gudoonka uu wado ajenda hoose oo ku saabsan in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. ma cadda in qorshihii gudoonka golaha shacabka markaasi ku saabsanaa isbeddelka lagu sameynayo xaaladda dalka gaar ahaan in muddo kordhin loo sameeyo dowladda uu isbeddel ku yimid maadaama cadaadis kala duwan la saaray gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale wararkaas berri insha Allah sida ugu macquulsan ayaan idinku soo tabin doonaa insha Allah. markaana fila Soomaaliya ayaa war culus ka soo saartay wararka sheegaya in dowladda federaalka ay iskaashi military la saxiixanayso dowladaha Ethiopia iyo Eritrea kadib saacadii la soo dhaafay oo soo baxayeen warar sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u duuli doono magaalada Addis Ababa ee dalkaas Ethiopia. madaxtooyada Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay warar saacadihii u dambeeyay si weyn u baahay oo la xiriira safar uu qorsheynayo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku gaaro dalka Ethiopia. agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa qorshaha safarkaasi ku tilmaamay been abuur, wuxuuna meesha ka saaray in uu jiro safar uu qorsheynayo ama uu u baxayo madaxweynaha Soomaaliya iyo heshiisyo uu la galayo dowladaha Eritrea iyo Ethiopia. fadlan iska indhatira warka been abuurka ee sheegaya safarka madaxweyne Farmaajo amaba qorshaha in uu saxiixo heshiis haba yaraatee, ayuu yiri Cabdirashiid Xaashi oo qoraal soo dhigay boggiisa Twitterka. sidoo kale waxa uu qoraalkiisa si gaar ah ugu beegsaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid oo isagu toosh ku ifiyay qorshahaas halista ee ku gadaaman oo horey loo baahiyay. warka been abuurka ah waa been abuur uun xataa haddii uu ka imaanayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka, ayuu hadalkiisa sii raaciyay agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya. hadalkan ayaa imaanaya saacado uun kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu soo dhigay Twitterkiisa qoraal uu ku shaacinayo in uu jiro heshiis halis ah oo ay kala saxiixan doonaan Soomaaliya, Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea, inkastoo ugu dambeyn warkaasi ay beenisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waa xagaag haatanna haddii aynu fiirino kulan ay qabanqaabisay madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhex maray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. kulankan ayaa waxa uu ka dhacay guriga gudoomiye Mursal iyadoo ay ka qayb qaateen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo qaarkood ay gacan saar u yihiin madaxda dowladda federaalka, iyadoo kulankan uu yimid xilli xasaasi ah, waxaana kulankan isku gadaamay shaki weyn oo soo kala dhex galay labada mas'uul oo la sheegayay muddooyinka u dambeeyay in aysan isku wanaagsanayn. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa si weyn uga soo horjeeda muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda iyo madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo ay xiisadda siyaasadeedna kala dhaxaysay gudoomiyaha golaha shacabka oo ah ninka wada muddo kororsiga. wararka ayaa sheegaya in kulanku uu ahaa mid looga arrinsanayay xaaladda khilaafka doorashada oo isu soo dhoweyn looga dhex abuurayay gudoomiye Mursal iyo Laftagareen oo iyagu muddooyinkii dambe isdiidanaa. waxaa hakad galay shirarkii madaxda maamul goboleedyada, waxaana berri loo balansan yahay kulanka baarlamaanka iyadoo laga cabsi qabo in muddo kordhin halkaasi ay ka dhacdo. warqa TV ayaad weli naga daawanaysaan. gabagabada warka ayaynu isla soo gaarnay. kooxda
dowladda Kenya ayaa soo saartay warbixin cusub oo ay ku sheegayso in 2012 al-shabaab ay isku dayeen inay qaarijiyaan Kibaki madaxweynihii hore ee Kenya iyo Raila Odinga. waxa ayna arintan ku soo aadaysaa xilli dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysatay maxkamadda ICJ. dagaalyahanada al-shabaab ayaa 2012 isku dayay inay qaarijiyaan madaxweynihii hore ee dalka Kenya Mwai Kibaki iyo ra'iisul wasaarihii hore ee xilligaas Raila Odinga sida ay baahisay warbaahinta Kenya. xogtan ayaa laga ogaaday dukumeentiyada ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee la xiriira kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya. xogtan ayaa lagu sheegay in intii u dhaxaysay June iyo October sanadkaas la ogaaday in sarkaal ka tirsan al-shabaab oo aan magaciisa la shaacin uu booqashooyin ku tagayay magaalada Nyeri si uu ula socdo dhaqdhaqaaqa Kibaki. isla waqtigaas koox lagu magacaabo al-Hijra oo la rumaysan yahay inay xiriir la leedahay al-shabaab ayaa ku raad joogtay hogaamiyaha xisbiga ee ODM ee Raila Odinga. dukumeentiyada ay gudbisay Kenya ayaa soo xiganaya warbixin ay 2013 soo saartay kooxda kormeerka cunaqabateynta hubka Soomaaliya ee UN Monitoring oo uu ku jiro cod laga duubay Amiir Ahmed Imaan oo ka tirsan kooxda al-Hijra oo faahfaahinaya shirqoolkii lagu dili lahaa ama lagu dili rabay Kibaki iyo Odinga. warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in Abuukar Shariif Axmed oo loo yaqaano Makburi uu Maleeshiya Soomaali ah kala shaqeynayay in la qoro dagaalyahano shaqadoodu tahay inay dilaan Kibaki oo xilligaas howlgab ahaa iyo Raila Odinga. si kastaba hadalka ka soo yeeray Kenya ayaa waxa uu muuqdaa rafashadii ugu dambeysay ee Kenya ay wado ee la xiriira dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Hague ee dalkaasi Holland oo ay Kenya iyadoo markaasi ka baaqsatay isla marhaantana ay diiday in ay ka soo qayb gasho fadhigaasi. ugu dambeyntiina diyaarad siday wafdi ka socda dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa maanta laga hor istaagay inay ka soo degto garoon ku yaala magaalo xeebeedka Garaacad ee gobolka Mudug sida ay sheegeen dadka deegaanka. wafdiga Imaaraadka ee laga hor istaagay booqashada Garaacad ayaa waxa lagu soo waramayaa inay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo booqasho ku tagay magaalada Garaacad ee gobolkaasi Mudug. wararka waxay intaasi ku sii darayaan in diyaaradda ay soo istaageen maleeshiya dadka deegaanka ah oo is-abaabulay kuwaasi oo gabi ahaanba la wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha oo ay ku soo degi lahaayeen wafdiga Imaaraadka. maleeshiyada ayaa diiday in diyaaraddaasi ka soo degto garoonka macmalka ah ee Garaacad. ilaa haddana lama oga sababta ka dambaysa arrintaasi, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in ay iskhilaafsan yihiin ama uu jiro khilaaf u dhaxeeya maamulka Puntland. waxaa socda dadaalo ay odayaasha dhaqanka wadaan kuwaasi oo lagu dejinayo xiisada ka dhalatay arrintan, mana jirto wax wara oo ka soo baxay maamulka Puntland oo ay dhacdadaasi kaga hadlayaan. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.